muuqaalkeennan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 6 arrimood oo caafimaadka halis ku ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo caafimaadka halis ku ah isla markaana aynu samayno innagoo aan dareensanayn waxyeelladooda. Haddaba 6 arrimood haddaad samayso iska jooji intaanay caafimaadkaaga waxyeelin, waayo adduunka waxa ugu qaalisan waa caafimaadka iyo waqtiga ama fursadda. Number 1, biyaha oo aad cabto markaad cuntada cunayso. Haddaba biyahaasi ma fiicna oo dheefshiidka shaqadiisa ayay hoos u dhigaan. Haddaba waxaa fiican inaad biyaha cabto markaad cuntada dhammayso, weliba biyo kugu filan. Number 2, earphoneska wax lagu dhagaysto oo aad muddo dheer isticmaasho waxayna waxyeello u geystaan maqalka dhagaha. Haddaba ha isticmaalin waqti dheer si aanay dhagahaaga waxyeello u soo gaadhin. Number 3, kaadida oo aad waqti dheer isku hayso waxayna dhib u keentaa caafimaadka kelyaha. Haddaba ka digtoonow inaad kaadida waqti dheer isku hayso. Number 4, moobilka oo habeenkii la soo dhawaysto ama barkinta hoosteeda la gashado. Moobilku wuxuu soo daayaa shucaac kaasoo hurdada kaa xumaynaya, caafimaadkaagana waxyeelaya. Haddaba iska fogee moobilkaaga habeenkii oo waxaad dhigtaa meel kuu jirta gacantaada dhererkeeda ama qiyaas ahaan meel kuu jirta 1 mitir siday dhakhaatiirtu sheegaan. Moobilkaagana ha ku isticmaalin meel madow si aanu waxyeello u gaadhsiin caafimaadka indhahaaga. Number 5, cunidda ama cabidda waxyaabaha aadka u kulul waxay waxyeelaan caafimaadka qofka waxayna ka qayb qaataan inuu qofka ku dhaco xanuunka loo yaqaano kansarka hunguriga. Haddaba dadkeennu shaaha ayay cabbaan isagoo aad u kulul, taasina waa arrin halisteeda leh. Waxaana fiican in la iska ilaaliyo kulaylka badan, balse iyadoo cuntadu diiran tahay waa la cuni karaa waana la cabbi karaa waxyaabaha diiran. Number 6, hurdo la'aanta ama soo jeedka habeenkii waxaanu sababi karaa wadne istaag, caajis, wahsi, madax xanuun, dulqaad la'aan, cadho badan iyo inaad waxba qabsan kari weydo oo aad noqoto qof nolosha ka dhacay ama aan horumar fiican gaadhin. Haddaba qodobadan iyo kuwa la midka iska ilaali, waayo ka hortagga ayaa ka fiican isdaweynta.